madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha jamhuuriyadda iskeed madax-bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa markii ugu horeysay ku kulmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya. madaxweyne Farmaajo wuxuu Addis Ababa u joogaa shirka sanadlaha ah ee madaxda midowga Afrika. dhanka Somaliland horay ugama qayb geli jirin kulamada AU-ga, haddana ma cadda sababta uu Muuse Biixi u tagay halkaas. labada madaxweyne ayaa goobjoog ka ahaa shir madaxeedka ururka midowga Afrika ee ka dhacay xarunta Addis Ababa. faahfaahin buuxda lagama hayo waxa ay ka wada hadleen Farmaajo iyo Biixi, waxayna warar soo baxay sheegayaan inay yeesheen kulan ay albaabada u xirnaayeen oo qaatay in ka badan nus saac. afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed ayaa xaqiijiyay shirka balse ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo maanta magaalada Hargeysa shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta ayaa xaqiijiyay kulanka dhex maray Biixi iyo Farmaajo, inkasta uu ka gaabsaday inuu xogta oo dhammaystiran bixiyo. wuxuu wasiirku sheegay in kulanku uu la mid ahaa shirarka caadiga ah ee ay isku arkayeen madaxweynayaasha isugu tegay magaalada Addis Ababa ee Afrika. Farmaajo iyo Biixi ayaa si gaar ah ugu kulmay xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed. kulanka oo ahaa mid albaabada ay u laabnaayeen oo labada hogaamiye oo keligood ay ku wada hadleen wuxuu shirku qaatay ilaa 40 daqiiqo. horey si kafool ah isuma aysan hor fariisan labada mas'uul tan iyo intii ay xilalka qabteen. dowladda Soomaaliya iyo Somaliland ayaa dhawaanahan isku fahmi lahaa wada hadalladii u dhaxeeyay oo aan dhowr sano qabsoomin, laakiin wax kulan ah labada dhinac ma dhex marin wixii ka dambeeyay markii uu xilka madaxweynaha Soomaaliya la wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo tan iyo 2017. maxay yihiin shuruudaha lagu xiray dib u bilaabashada wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland? dhowaan waxay gudiyada labada dhinac u qaabilsan wada hadalladaas ka hadleen sidii dib loogu bilaaban lahaa miiska wada hadalka. Somaliland ayaa tabasho ka qabtay dowladda Farmaajo, waxayna ku eedeysay inay meesha ka saartay arrimihii horey loogu gudbay intii ay wada xaajoodka socdeen. dhinaca Soomaaliya, guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wada hadallada u qaabilsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wada hadal la furo, wada hadalkaas oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Somaliland. hadalkan waxay soo saareen kadib toddobaadyo ay wada tashi kula jireen ururada bulshada rayidka iyo madaxda kala duwan ee dalka Soomaaliya. guddiga Somaliland u qaabilsan wada hadalka Soomaaliya ayaa sheegay inay diyaar u yihiin wada hadal, laakiin ay markii hore dowladda federaalka ka doonayaan inay meel mariso heshiisyadii hore ee loogu gaaray kulamadii labada dhinac yeesheen. in la wada hadlo waan soo dhaweynaynaa. wada hadalladu halkii ay marayeen laga soo bilaabo kii koobaad ilaa iyo kii lixaad waxaa dhacay isu soo dhawaansho ummadda way isu soo dhawaanaysay. waxaase nasiib darro noqotay in madaxweynaha dalka aanu jaarka nahay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu wada burburiyo qodobadii hore loogu heshiiyey oo dhan, oo intuu maalin soo toosay uu yiri saxiixyadii madaxweynayaashii hore waxba kama jiraan, oo uu yiri diyaaradaha laga maamulo xamar. ayay tiri Adna Aadan Ismaaciil, gudoomiyaha guddiga wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland u qaabilsan dhinaca Somaliland.